Kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay suuqa dhigtay xiddiga reer Belgium ee Eden Hazard, ka oo dooneysa inay iska iibiso xagaagan. Kadib 3 sannadood oo ku fashilmay garoonka Santiago Bernabeu, inta ugu badan dhaawacyo ayuu la jiifay ama ku qaatay. Real Madrid ayaa sanadkii 2019 waxay 88.5 milyan oo gani kaga soo iibsatay kooxda kubadda cagta Chelsea xiddiga reer Belgium ee loo yaqaan Eden Hazard, wuxuuna noqday xiddiga ugu qaalisan ee kooxdaasi. Hase ahaatee, muddadii 3 sano ee uu joogay ayuu saftay kaliya 66 kulan oo uu u dhaliyay 6 gool oo qura. Inkasta oo ay Real Madrid ku guuleysatay 2 horyaal oo La Liga ah iyo 1 Champions League ah intii uu Hazard joogay Santiago Bernabeu, haddana xiddiga reer Belgium oo kaliya magac ayuu la joogay Los Blancos oo wax kama uusan ku darsan guulahaasi. Tartanka Champions League ee Real Madrid xilli ciyaareedkii hore ku guuleysatay 83 daqiiqo oo kaliya ayuu ka ciyaaray, waana wax ka yar 1 kulan oo buuxa, waxaanay hadda Ancelotti iyo Florentino Perez u arkaan inuu xiddigan faa'iido ama macno u lahayn Bernabeu iyo tiimka loo yaqaan Los Blancos. Warbaahinta ayaa sheegtay in Carlo Ancelotti uu ansixiyay in suuqa la dhigo xiddigan loo yaqaan Eden Hazard, inkastoo 31 sano jirkaan marar badan oo ku celceliyay inuu doonayo inuu sii joogo garoonka Bernabeu. Xiddigaha da'da yar ee Vinicius iyo Rodrigo Goes ayaa nolosha ku adkeeyay Eden Hazard oo hadda boos la'aan ka ah kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ama Los Blancos, waxayna fursadiisa ku sii darsan doonaa inuu kooxdaas haddii soo joogo marka Asensio oo hadda cadaadis ka ah ama gadoodis inuu dhiiqo lugaha ku sii geli doono. Hadda Hazard isagoo xitaa lama socdin Champions League tagay oo 83 kulan ciyaaray. Si walba uu xaalku yahay, Hazard waxaa diiradda u saaran koobka adduunka ee dhammaadka sanadkan lagu qaban doono dalka Qatar. Xulka uu hogaamiyo majarahana u hayo asaga ee kabtanka u yahay Belgium ayaana la filayaa hadduu booska ama hooska Carlo Ancelotti uu kusii jiro inay ka tagi doonaan. Si walba ay noqoto, Ancelotti iyo Florentino Perez go'aankooda meel cad ayay dhigeen, Hazardna suuqa ayaa la dhigay.